waxaan isleeyahay de xeerku anaguna siinayay inaanu magacawno guddigaas laakiin waxaan isnidhi aqalka 39 xubnood ayaa kuwa cusub ah isma naqaano si fiican isma wada naqaano marka waxaan isnidhi habraaci waagii aynu raacnay ee aan guddigan ku sameynay oo kale uun inaan raacno oo ay tahay in dawladaha xubinka takaa dawladda federaalkii inay soo doortaan oo ay keenaan xubnaha guddiga inooga koomayo kullay guddigu 6 xubnood buu noqonayaa laakiin waxaan rabnaa xubno aqoon fiican leh garan kara maanta waxaynu u baahannahay madaxweyne hogaamiye dhab ah oo dalka dhibaatada uu ku jira ka bixin lahaa ayaynu u baahannahay waxaan xusuusnahay on maanta hal eray halkan ka odhanaya 2000 markii madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti uu qabtay shirkii Soomaaliya dawlad dib u dhisid loogu sameyn lahaa waaga inaga Soomaalidu horta fanaaniinteena hadalkooda ma danayno laakiin maanta waxaan isticmaalayaa hees abwaan Soomaaliyeed oo la yiraahdo Cabdiduux Yuusuf uu ka jeediyay shirkaas oo ilaa maantana xaaladii aynu kolka ku jirnay ay sidii u taagan tahay heestiisa waxa la oran jiray darajiya xilyaa mudan wuxuu kolkaasi feynayay qofka ay Soomaaliya u baahan tahay yaa colaada damin kara dabka yaa baqtiin kara yaa dooni kara nabad dalka dib u dhiskiisiyo dadka yaa wax tari kara laba versin oo kaliya ka soo qaadanaya kaasi waa mid oo kolka qofka aynu u baahannahay waa qof dalkan nabad ka dhiga dhibaatada jirta joojiya dalka dhisa dadkana wax tara inta uu inoogu sheegay abwaanku heesta intaas weey wuxuu yiri qabiilku dacar weeye qabiilku yaa diiday oran kara dadka yaa hor iman kara hadal deeqa oran kara rag iyo dumar kulligood yani warkiisa siin kara oo xuma ka daahira waxaynu u baahannahay yani hees waa dheer tahay laakiin labada eray baan labada weedood oo kaliya ayaan ka qaadanayaa way badan tahay waxa weeye waxaynu u baahannahay marka taa qofka uu abwaanku sifeeyay ee heesta ku sifeeyay ayaynu u baahannahay inaga anigu waxaan aaminsanahay oonan marna ka tanaasuleynin qabiil dawla kuma noqonayno ma ku noqon karno sababta waxa weeye qabiil waa dhaqane siyaasad ma aha dawlana ehel bay rabtaa aqoonyahan bay rabtaa aqoon u leeyahay rabtaa waxa kolka leeyahay maanta guddiga aynu sameynayna waa inuu noqdo waa guddigii doorashada u sameynayay madaxweynaha aynu rabno hoggaanka aynu rabno hoggaanka macnaheeda af Soomaaliga horta waa xadhig laakiin hoggaankaas waxa lagu xiriirin jiray awrka dambe awrka hore socodkiisu leeyahay baa la yiri waxaynu u baahannahay hoggaamiye aynu higsanno oo la wada raaco oo yani dhibaatada Soomaaliya ka jirta inaga saara waa guddiga aynu sameynayna kaas weey inaga kaliya ma kolka guddigu noqon maayo golaha shacabkuna guddi bay sameynayaan 10 xubnood baa xagga ka imanaysa xaggeena 6 xubnood 6deena xubnood waa inay noqdaan 6 xubnood oo aqoon leh
garanaysa mustaqbalka Soomaaliya sidii lagu hogaamin lahaa ee loogu soo saari lahaa madaxweyne dibta ka saara guddiga intaynu dooranayna inta weey waxaan kolkaa leeyahay dawlad goboleed kasta ha isu tagto ha noo keento qofka ay leeyihiin qofkaasana matalaya iyadoo annagu tanaasul halkaa ka samaynay annaga ay ahayd inaanu guddiga magacawno laakiin maadaama kii hore guddigii hore sida aynu u qaadanay kanna waxaan nidhi tiin baan raacaynaa oo aynu kolkaa sugaynaa inay noo keenaan aad iyo aad baad mahadsantihiin intaasaan odhan lahaa waad mahadsantihiin